waxaan uga tacsiyadaynayaa dhammaanba ummadda afka soomaaliga ku hadasha geerida ku timay sooraan saaxiibkay sooraan ismaaciil sugil inkastoo ay joogaan. muddo intee leeg ayuu hadda xanuunsanayay? 26 maalmood buu xanuunsanayay. abwaan jawaan goormaad isbarateen allah u naxariistee abwaan sooraan? bilowgii 2003. qaab caynkee ah ayaad isku barateen marka? ma riwaayadahan aad samayn jirteen iyo arrimahan la xidhiira fanka iyo suugaanta ayaad isku barateen mise qaab kale oo aad isku barateen ayaa jira? markii horeba muddo sanado waxaa laygu lahaa warniyow ninkaagane dadka riwaayadaha tahay haddaad nin halkaa jooga aragto waxbaa curin lahaydeen. muddo sanada la ii sheegayey kadib anigoo maqaaxays ka fadhiyin baan ninkii hebelow mid ku yidhi dabadeetana anigoo hebelkiisba war miyaa kii la sheegayay ahay unbaa anigana midi yeerosho isagana sidaas unbaa lagu lahaayo halkaasaanu iskala jaan qaadnay oo isku baranay maalintaa. abwaan jawaan marka ma xasuusataa markii ugu horreysay ee aad riwaayad wada jishaan allah u naxariistee abwaan sooraan? maalintaa waanu sheekaysanay sidii maalinta aanu sheekaysanay maalintii dambana waanu ballanay sidii unbaa baanu hawshii ku bilowno ninkana maskaxdiisu aan arkay inuu yahay abwaan cajaa'ib oo maskaxdiisa wax ku jiraan oo bacrimi oo wax urinaysa aniguna waan la kaashaday wixii igu jiray marka sidaasaanu ku dhalinay dabka iyo barnaamijyada dadka bulshada aanu usoo bandhigayna. riwaayadaha aad wada samayseen ma jirtaa riwaayad si gaar aad is leedahay mar walba waxay ku soo xasuusin kartaa abwaan sooraan? miyey xasuustiisu bay ka dhammaanaysaa sulinkaan ka soo laabtaba riwaayadba iyadaan xasuusteeda la gaarin isku xaafad isku salli isku fadhi isku kursi isku jiif isku mid laakiin ninkana wuxuu heer caalami ku yahay mar walba inuu dadka ka horeeyo bulshada oo waxyaalaha uu ka damqan jiray mar walba odhan jiray warniyo waxaas ummadda way ku soo socdaan ama way ku xun yahay ama bulshada dhexdeeday taallaaye aynu barnaamij ka samayno dadka miidiya waxu marino wax kastoo uu arko wuxuu ka fekeri jiray markiiba. dabcan muddo dheer ayaad isgaranayseen marka taariikhdiisii maxaad nagala wadaagi kartaa? waxaan kaaga sheegi karaa inuu dhashay taariikhdu markay ahayd 1958 kuna dhashay magaalo u dhaxaysa qurco iyo wadaamago oo la yidhaahdo kirir oo xagga miyigeeda ah. halkaa markuu ku dhashay yaraantiisii wuxuu yimi burca malcaamadda lagaga daray iskuul laban tiriyey isagu muu soo marin laakiin haddana waxbarashada iyo qoraalada iyo waxa uu yaqaanay kadib markuu joogay oo malcaamadda halkan kaga baxay wuxuu noqday dadkii ka qayb galay 1974 dadkii abaaruhu ay rabeen ee koonfurta soomaaliya la geeyey. abwaan maxaad nooga sheegi kartaa carruurtii iyo xaasaskii uu ka tegay allah u naxariistee abwaan sooraan? sooraan ismaaciil sugulle wuxuu lahaa iminka wuxuu qabay 2 dumara islaan hore oo iyo gabadh dambe 3 carruuroo isagu dhalay 2 inan iyo inan dadkiisu sii dhaleen 4 carruura buu iska kaga tegay iyo 2 xaas. shakhsiyaddii abwaan sooraan ka waran marka nin caynkee ah ayuu ahaa? waxaan ka sheegi karaa ninku aad iyo aad nin sooraan ismaaciil sugulle waxaa nin aad iyo aad u dabeecad fiican nin dadnimo leh nin masaakiinta caawiya nin saaxiiba salaada nin isqabqabsiga iyo muranka iyo waxaa neceb wuxuu ahaa nin calool xaadhan oo dadka aan caloosha waxba ugu qabana wuxuu ahaa nin nadiifa. waxyaabaha aad is leedahay si gaara wuu kaga duwanaa abwaaniinta kale iyo dadka kale ee wax sameeya maxay ahaayeen? waxyaalaha aan la ilaawi karin ninka waxaa ka mid ahaa dee uu isaga lahaa isagu aan wuxuu samaynaya uu hibada u lahaa wejigiisaad saa u egeysaa 2 minidoo isku xigu midna farxad muujinaya midna cadho ama murugo muujin karaa. qof kastoo bini-aadmi oo kale ma samayn karo laakiin ninkan hibi taa u lahaaba inuu ama 2 minidoo isku xiga marna qoslo marna murugo ama cadho muujiyo ama yaab